بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادن سلامة قيرتو شرفت الميل كستو دونيدا دعلديدي دافيادات كجوجتان وقرنتي يقول الصلي حبيبكينا محمد صوبانهنا صلى الله عليه وسلم عمري داري عبادة صوباني عافمات قبكو وارا نمايا برانا ندين رجينايا maanta iyo muuqaal cusub cashadaada sidaan u samayso hadduu ilaahay idin runaantii waad ka heli doontaa aadayna ku anfici doontaa kamana caajisi doontid waxaan idin sheegay walaalaha sharafta leh subscribe saara channelkeena gambaleelka furta si idin soo gaaraan casharadeena cusub oo aan maalin walba soo gelino gambaleelka si aad u furato waxaad u baahan tahay inaad marka hore subscribe saarto dad subscribe saaran gambaleelka ma furan kartid like garee videoga share garee videoga la sii wadaaga asxaabtiina baqaylnimada iska day waa bilaash ayaantan fees ku hoos buu socdaa waana ku dhagan yahay meesha naga qaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin haddana insha Allah tacaala waxaan guda galeynaa hadduu ilaahay idmo sida aan u sameynayno casharkeena cashadeena qada ayaad ka dhigan kartaa quraac ayaad ka dhigan kartaa cashana waad ka dhigan kartaa wax ay diidayso malahan run ahaantii aad ayaad uga heli doontaan cuntadan waana si fudud oo aan waqti badan ka qaadanin baad u samaysanaysaa insha Allah tacaala oo kaga raysanayso cuntooyinka culus sida bariiska iyo baastada iyo ilmuhuna aad bay u jecel yihiin dadka dhan way xiisayn doonaan insha Allah hadda waa bilaabanayna bismillaahir rahmaanir rahiim baaquli ayaan soo qaadanaynaa waxaan ku shubanaynaa burkaan waa nus kiilo اللهم صل على محمد كيلو بر ayaan isticmaali doonaa insha Allah sidoo kale waxyaabahan isticmaalayna waxa kamid ah qaybtaas burka waa isla nus kiilada qayban ka reebay marka dib baan kaga dardarsan doonaa inta yartaan waxaan isticmaali doonaa oo kale cusbada qaadada haafkeeda qaada aad u yar weeye oo aan buuxin baan isticmaalnay اللهم صل على محمد sidoo kale waxaan isticmaali doonaa fixiso ama qamiiriso mayisti intaas hadba kaad u taqaano ayadana hal qaado ayaan ka isticmaali doonaa insha Allah tacaala waxaan isticmaali doonaa hal qaado oo buuxda oo sokor ah اللهم صل على محمد inta markii aan isku qasno oo si fiican isku dhex gelino ayaan waxaan sameyn doonaa insha Allah waxaan isticmaali doonaa hal xabo oo ukun ah ukunta hal xabaan isticmaalnay waad ka badsan kartaa 2 3 waad ka dhigan kartaa laakiin hadda hal xabaan isticmaalnay si uu noogu noqdo burkan jileec laba qaado oo saliid caadi ah saliid cadeeda cuntada lagu kariyo saliid saytuun waad isticmaali kartaa intaasaan isku walaaqaynaa si fiican baan isku dhex gelinaynaa waxaan kala soo qaadanaynaa caanuhu waa noo qandac insha Allah tacaala caano qandac weeyaan burka marka hore inta aan caanaha ku shubnay ayaan isdhex gelinaynaa oo si fiican isugu qasaynaa wuxuu noo noqonayaa sida furfurka ah oo u maleysida saga dhan in ma garanaysaa saliid iyo wax lagu waxeeyay furfurka markuu noo noqdo kadib ayaan caanaheena iyo qandac noo diiran ayaan ku shuban doonaa markaan caanaha ku shubanana waan qasaynaa burka waa isdhex gelinaynaa si fiican baa u soo qasaysaa si fiican oo jilicsan baad ka dhigaysaa adayga ka dhigin burkaaga jilic zaidna ka noqon dhexdhexaad inaad ka dhigtaa la rabaa meeshiisa ayaan ku dabooleynaa waxaan ka maqnaanaynaa ilaa 10 ilaa 15 daqiiqo inta u dhaxaysa kadib waxaan sameynaynaa baradhadan ayaan soo qabsanaynaa 4 xabo oo baradha ayaan biyaha ku ridanaynaa baradhada waad ka badsan kartaa 4 xabo 5 xabo intii ka badan baad ka dhigan kartaa baradhadeena markay bislaatay waan burburinaynaa birta ayaan isticmaali doonaa insha Allah markii aan burburino baradhada ay diyaar sida noogu tahay ma sha Allah aad ku qurux badan ayaan wax soo qaadan doonaa iyadana baaquligaan ku shuban doonaa xawaashaadka aan u baahanahay baan ku darsanaynaa liin dhanaan baan ku darsanay saliid saytuun baan ku darsanay cusbo yar iyo xawaashi baan ku darsaday kadib waxaan sameyn doonaa insha Allah tacaala waxaan guda galeynaa sidaan hilibkii qudaarta u sameyn lahayn digsi baan soo qaadanay dabkan saaranaynaa hal xabo basal ayaan si yaryar u soo jarjaranaynaa waad badsan kartaa 2 3 xabo oo toon ayaan ayadana soo jarjaranay ayadana si yaryar aan u soo jarjaranay inta ayaan isku shiilaynaa dabka waad u gaabinaysaa waligaa dabka markaad wax ku karinayso dabka gaabso dhexdhexaad ka dhigo hadii kale uu ka gubanaya hadda waxaan ku darsanay 2 xabo yaanya ayaan soo jarjarnay ayadana yaanyada si yaryar baan soo jarjarnay yaanyada ayaan ku darsanaynaa suugadeena waan diyaarinaynaa markay hadda saan yaanyadii iyo basashii iyo toontii ay isugu burbureen ama aan u diyaarinay waxaan ku darsanaynaa hilibka shiidan markii hore ayaan sii kariyay oo diyaarsan yahay isaga hadda karis kale uma baahan sidoo kale waxaan hadda ku darayaa waa cabbage aan asna si yaryar u soo jarjaray xoog baan u soo dhaqay si fiican mar walba cabbage iyo qudaarta isaga dhaq inta ayaan shiilaynaa ama aan karinaynaa haddii ilaahay kar badan uma baahna waxaan ku darsanaynaa xawaashyadeena paprika powder maraq digaag xawaash burbur shiidan kamuunkii cusbadii
waxa alla waxaad adiga carfis aad haysato ayaad ku darsanaysaa. kadib waxaan ku darsanaynaa barbarooni iyo kabsar caleen. barbarooniga guduudka iyo cagaarka guduudka madhaha halmaan hadalku ma jira, jaalaha iyo cagaarka iyo kabsar caleen ayaan ku darsanaynaa. cabaar yar ayaan karinaynaa, waqti badan uma baahna inuu xoog u karsamo. markii ay diyaar noo noqdo suugadeenu ayaa waxaan soo qabsanaynaa baradhadeeni. baradhada waxaan ku daraynaa waa cheese aan hadda ku darayno. cheese iyo baradhada ayaan si fiican isku dhex gelinaynaa. markii aan si fiican isku dhex gelino baradhada iyo cheese aan si fiican isugu qasno ayadana meel gooni ayaan dhigan doonaa insha Allah taala. burkeeni oo 15 daqiiqo noo yaalay ayaan soo qaadanaynaa. burka alwaxa ayaan bur yar iska xijinaynaa. 4 gabal ayaan u goyn doonaa insha Allah. marka 4 gabal u goyno oo isla eg halka u horeeya ayaan fidinaynaa insha Allah taala. sida balaarka ayaan u fidinay oo qafiifka ah. ka bacdina waxaan sameynaynaa hilibkeeni iyo cabbage-keeni iyo qudaarteena noo diyaarsanaa ayaan geeska uga shubaynaa. waana ku laabaynaa si fiican ayaad ugu laabaysaa hadduu Ilaahay idmo. saas inuu ka kala dheeraado lama rabo, si siman oo isla eg ayaad u laabaysaa. hilibka waa tartiib iyo ka kala daadan. saa markaan ugu laabno oo sida aan diyaar uga dhigno ayaan waxaan soo qaadanaynaa birtaana soo qaadanaynaa. saxan iyo wixii hadba marka aad adiga rabtid ayaad ku gashan kartaa. saliid baan marinaynaa. saliida markaan marino xabada u horeysay ayaan dhexda u dhigaynaa. geesaha saa ugu soo fidinaynaa. marka geesaha saa ugu soo fidinayno halkan kale ayaan asna isticmaali doonaa insha Allah. qayb ayaan kan ka goosan doonaa, ma wada isticmaali doono. qaybta ayaan sida uga goosanaynaa hadduu Alla idmo. ka bacdina qaybtii kale oo banaanayd baan saa u soo gelinaynaa. wareegas ayaan ku soo wadaynaa. qayb ayaan saa ugu soo wareejinaynaa. markaan ku soo dhameystirnay hadda waa kana waa daboolaynaa. 10 daqiiqo kale ayuu noo laaya. qaybta kale oo baradhada iyo cheese-ka gelinayna ayaan ayadana isticmaali doonaa insha Allah. gabal yar baad goosanaysaa. baradhada si yar oo ku soo banooni camal ayaad ka dhigaysaa. kadibna burkii ayaad kala fidinaysaa, dhexda ka fidinaysaa, dhexdaad ka gelinaysaa sidii in aad cheese gelinayso ama waxyaabahaas farmaajada iyo la midka ah ayaad saa ugu laabaysaa. waxaan hadda gelinayna waa baradhadii iyo cheese-kii ama farmaajadii oo aan kuusnay baan burka dhexda ka gelinaynaa. Allahumma salli ala Muhammad. markaasna soo dhameynay waa kana ukunta ayaan soo qaadanaynaa. ukunta inteeda jaalaha iyo waxa isku daraya carfiso ama vanilla. kadibna dusha ayaan ka marinaynaa. dusha markaan ka marino dabkan gelinaynaa. maasha Allah tabarakallah wuxuu noogu soo baxay sida aad u jeedaan oo quruxda badan, guduudka dahabiga ah aadka u quruxda badan. dhexda waxa kaga jira waa hilibkii iyo qudaartii. kaali iska arag, run ahaantii wax la qoori kara maahan. aad ayuuna ku anfacayaa. kor iyo hoos buu ka guduudan yahay. teeda kale waa jileec doolsho ayaad u malaynaysaa. asaga dhan sida uu diismay waa u jeeda u kala daadanaya sida qafiifka weeyaan. maadaama la laalaabay waxa weeyaan laalaabiyo isdul saaran weeye uu kala daadanaya asaga dhan. aadna uu jilicsan yahay. doolshaad u malaynaysaa. waa rajaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan hadduu Ilaahay idmo. wuxuu aad ugu fiican yahay runtii in casho laga dhigto ama sidoo kale quraac laga dhigto ayuu aad ugu fiican yahay. qadana ma diidaayo. kaale iska arag weeye. kan asaga qaybtan kale waa qaybtii couscouska. ayagana kaale iska arag weeye. cheese-kii iyo baradhadii dhexday kaga jiraan wuxuu noqday wax aan caadi ahayn. rooti aan caadi ahayn camal ayuu noqday. markaad goosanaysid ama aad kala goynaysid cheese-kii iyo bahashii Allahumma salli ala Muhammad ukunti cheese-kii iyo hadalkii baa iga dhumay raalli ahaado. cheese-kii iyo baradhadii ayaa dhexda kaga jira ayagoo jiitamaya maadaama cheese uu ku jiro sida quruxda badan oo jaalahana ah ayuu ku soo baxay. kaal iska arag waad ka heli doontaan saxaabay. soo tijaabi. waqti badan runtii kaama qaadanayo waanad ka faa'iidi doontaa wax badan. haddii aad wax naga faa'iiday commentiga noogu soo qor wixii aad naga faa'iiday iyo wixii aad naga baratay insha Allah. marka insha Allah taala ku raaxaysta, indhaha ka raaxaysta. macaankeeda ana idin dhadhaminaya cuntadan iyo sida uu tastigeeda ama dhandankeeda uu yahay. run ahaantii wax laga sheekeyn kara maan. adinkana waad soo tijaabin doontaan insha Allah. ketchup iyo sauce kale wixii aad hadba rabto inaad ku cunto ayaad ku cunaysaa. markaana waxay noqonaysaa cajiib. war badan lama wadi karo. waxaan idin leeyahay ballanteen waa in aadna soo subscribe garaysaan. aad TikTok-geenana soo booqataan asagana haataaka 20 wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan oo aad idin cajabin doono. runtii kaale iska arag weeyaan. walaalo badan ayaa nagu xiran oo ku sii dhow 50,000. adinkana waxaan rabnaa inaad ka mid noqotaan walaalaha nooga xiran dhinaca TikTok iyo dhinaca YouTube-ka labadaba. kaale iska arag maasha Allah tabarakallah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin la jaanqaadkiina iyo la socodkiina. asxaabta hore inoola joogtay waxaan idin leeyahay samirkiina iyo dulqaadkiina waad ku mahadsantihiin.
mar labaad iyo mar saddexaad intaan video lamida aan dib ugu kulmi doono insha Allah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi